أنا اللوبي دونين نكاد أنت أبيه أنا اللوبي دونين مرحوم كاد أنت أبيه وما يتكين كيسوية له reerkii ninka wax dilay ka tagay xoolihii iyo damaatadu isagu xiriyo hayaan u tagnay soo gacanta ku haya aadan u tacseen waxay in adeerto saakalla khayr balantan ku balayna waa naga fulinay maxaan ku raahday dadka alla waxaan leeyahay oreeyda lagu sheegay rakaana u sheegayna waan suradaan reerka lagu aabaan u gaarnay anagu gacan kulida anaa qarsamaan ku gaarnay meel jooga dawladda soo qabanay war soo qabanno waxaana taasay dhibtii baan taabtay gacan ku dhiiglaha iminka bishan bilowgeeda bishan January 10 ka wareeya kun halad baan bixinaa maga dad baan ka soo ururnay dhiban caayila aan waxba haysanin nin baa nin kiir wax ku dilay oo cararaya dabeedna waxa la uqaash baad soo qabtaa iyo qoyskii iyo ninkii wiilka geeriyooday dhalay waxaan leeyahay awilsan ilaahay hasiyo samiriyana Allah hasiyo dhamaana beelahan iyo gobolka Sanaar bara saabkii baa yimid taliye qaybeedkii baa yimid waayeelkii wax garadkii aanu halka kula kulanayna rag wanaagsan bay ahaayeen ilaahay wanaajiyay waanu arrinkaas si fiican bay meyd bay laba casho dul joogeen annagayna sugayeen markii aanu nidhi aasta waa aasanayna baa sidii baan anana ku soo raacda galay bushaarada kalena sida ay bara saabka iyo taliye qaybeedku u sheegay ilaahay dawaan ugu guuleeyay ninkii waa soo qabanay sida ugu haboon ee tolkaya ku qanacsan yihiin baanu ka maraynaa soo qabashadii gacan ku dhiiglihii wax ku dilay tuulada Gumbur Xangeeyo iyagoo halka ugu tagay goobtii wax ka dhaceen ku gaaray ninkii halka ku geeriyooday u tacsiideeyay yidhi annaga hanolo aaso dhaqaaqii labaadna ay ku guuleysteen sida loo soo qaban lahaa gacan ku dhiiglaha oo ay gacanta u soo galiyeen ciidanka booliiska waxaan leenahay cuqaasha hambalyo mas'uuliyadeedii saarnayd iyo mid dheeraad ah leedinba waa ku darteen aad baan ugu maamul gobol ahaan iyo nabadgelyo ahaanba taliye qayb ahaan idinka mahad celinaynaa gacan eedaysanaha ama dambiilaha dambiga geystayna wuxuu ku jiraa xabsiga gar adag odayaasha annaga kala wareegnay waan uga mahad celinaynaa markooda iyo mar labaadba waxaan bulshada kalena ugu baaqayaa deegaanka gobolka Sanaag ku nool iyo Soomaalilandba waa inay ku daydaan oo soo qabtaan cid kasta oo fal dambiyeed geysata amniga ayaa mustaqbalka ummadana wuxuu ku jiraa nabadgelyaduna waxay ku jirtaa dambiilaha in la qabto aan la gacan siinin aad baan uqaasha uga mahad celinaynaa عاقل جيف عاقل حيرو جيف عاقل حرسي ديرية قولد عاقل داود صاحب كي جامع أصنع عاقل من كوا إلى هي بركية سعيد ورابي وصاحب كي عاقل من كا عاقل فارح لما العقاش أصوار رجع نستعلنا وأنت عن قبل كان كشقيني يا مدق مدن كشقيني رجع جذب تاجن كمدها مرة بعض وحنوجهم بلينا يا طلابة الجيش لماذا له يا كوسو قبتين قاعن كديجليه دور هذا حكي جيستي جمبرة حنجيو وصف له جوي قاني ريرجر أذق يعقاش هذا وطلابة أيكو أمانيهين وحول بانا وحك أما كوها جانا أما كحم هذا وطلابة كواد اللقاضة طلابة كواد وكو جوليستين وأنا يدون كوهم بلينا وأنا يدون كوما هذا قينا على سوين بانا قفرتين وأي هيدا أنا قلنا أمني أهان كشقينه إلى هيدا كشسايسيو دين عيد بناها أنا وحنا هلك نقول شيءنا إن أرنتها سبوليس كوجعنت كوهايو إن سيداكو سمران أو حوي مدينته وعلى إلى هون حريست مرحوم كي دنتي ويلد أيربوها إلى هون حريستو قيسكيو محنكور هذا قرابة السمرية إمام بندرنا دمانتيو عقاش halkan joogtana iyagoo isku duuban oo chiefku hogaaminayo dhamaantood waxaan idin leenahay